binaya warburtiyeedkii ka soo baxay shirka iskaashiga ee dawladaha Puntland iyo Galmudug maanta ay taariikhdu tahay 22 May 2019 waxa shir isugu yimid xarunta madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo madaxda dawladaha Galmudug iyo Puntland ee xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya shirka ay ka soo qayb galeen madaxweynayaasha labada dawladood wasiiro iyo xildhibaano waxa looga hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira adkeynta amniga iyo dadaalada dib u heshiisiinta dadka reer Puntland iyo Galmudug iyo iskaashiga labada dawladood ee dhanka mowqifyada siyaasadeed gaar ahaan geedi socodka dhismaha dawladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaanka lagu heshiiyay ee federaalka ah falanqayn dheer kadib shirka waxa ka soo baxay qodobada soo socda madaxda dawladaha Puntland iyo Galmudug waxay ka tacsiyadeeyeen dhacdadii 22 May 2019 ka dhacday tuulada Teerage ee galbeedka magaalada Gaalkacyo waxayna go'aamiyeen in si dhakhso leh loo soo afjaro shaqooyinka ka dhaca deegaanada miyiga ah waxa madaxda labada dawladood bogaadin u soo jeedinayaan dadaalada nabadeynta ee ay hormuudka ka yihiin madaxda dhaqanka iyo labada maamul ee heerarkooda kala duwan waxa lagu heshiiyay in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo dhameystirka hirgelinta heshiisyada labada dhinac ee hore u galeen lana xalliyo dhacdooyinkii hore u dhacay ee aan wali xal laga gaarin in laga shaqeeyo sidii xal waara loogu heli lahaa nabadda gobolka Mudug dawladaha Puntland iyo Galmudug waxay bogaadinayaan taageerana siinayaan howlaha firfircoonida leh ee ciidamada isku dhafka ah ay ka wadaan gobolka Mudug in labada dawladood iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan sugista amniga iyo in si midaysan meel looga soo wada jeensado la dagaalanka ururada argagixisada ah farqada koobaad ee qodobka 6 waxa la isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta hay'adaha amniga ee gobolka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka labada dhinac farqada labaad ee qodobka 6 waxa lagu heshiiyay in la soo qabto dadka faldambiyeedyada sameeya sida dilka dhaca iyo falalka kale ee wax u dhimaya xasiloonida gobolka waxa la isku raacay muhiimadda ay leedahay in dawladaha Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan mowqif siyaasadeed oo midaysan ee dhinacyada amniga nabadda iyo dhismaha dawladnimada federaalka ah ee Soomaaliyeed farqada koobaad ee qodobka 7 dawladaha Galmudug iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku wargelinayaan inaysan qayb ka ahayn waafaqsanayn sharciyada doorashooyinka batroolka iyo xeerka cashuuraha ee dawladda federaalku gacanta ku hayso aysan qayb ka noqon doonin wixii go'aano masiiri ah ee aan lagu gaarin wada tashi iyo wadar ogol dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah ugu dambeyn qodobka 8 madaxda labada dawladood waxay isku raaceen in la dhiso guddi farsamo oo heer wasiiro ah oo ka wada shaqeeya adkeynta iskaashiga arrimaha amniga iyo siyaasadda